waxaa magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan lagu qabtay munaasabad ay heshiis ku kala saxiixanayeen Akademiyada Qaamuus Learning iyo shirkadda Safar International. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan, ganacsato, gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed iyo shirkadda Suudaaniya. Akademiyada Qaamuus waa rug waxbarasho oo heer caalami ah loona diyaariyay inay ku bixiso casharrada hab-madaleed iyo online intaba. Xarunta ugu weyn waa magaalada Muqdisho. ugu horreyn waxaa madasha dahfuray Al-Sayid Axmed Muctasim Maxjuub isagoo soo dhaweeyay martida kuna dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbarashadu. أولى هذه التحديات هو تحدي التعليم والتدريب. waxaa jira caqabado waxbarasho iyo mid tababaro. shaki kuma jiro inay waxbarashadu tahay furaha ugu muhiimsan ee horumarka nolosha, gaar ahaan aadanaha. madaxa golaha maamulka Dr. Cabdiraxiin Ismaaciil Cabdiraxmaan oo ka mid ah asaasayaasha Akademiyada Qaamuus ayaa ka warbixiyay akademiyada iyo howlaheeda. waxaan u gudbaa qaamuus waa maxay? qaamuus waa akademiyad ku takhasustay habka online-ka ah, in ardayda ay habka online-ka casharada ku qaataan. sidoo kale qaamuus waxay ku takhasustay markasta inaan xoog ka saarno baahiyaha halkee ka jiraan. anaga kama shaqaynayno iskuullada, waxaan ka shaqaynaa ardayda markuu jaamacadda dhiganayo iyo jaamacad markuu dhameeyo muxuu u baahan yahay. ardayga markuu jaamacadda soo galayo waxyaabo badan walwal ku haya ayaa jiro in aan ka shaafin haddii ilaahay. sidoo kale waxaan xoog saaraynaa ardayga markuu jaamacadda uu dhameeyo wuxuu u baahan yahay suuqi inuu aado oo uu shaqaysto. marka ardaygu wuxuu u baahan yahay xirfado uu ku shaqaysto, ha joogo wadankii ama dibadda ha joogo. maamulaha guud ee shirkadda iyo xarunta tababarada Safar, Dr. Samurwa Maxamed Axmed ayaa ka warbixisay sida ay u shaqayso shirkadda Safar. تأسست شركة ظفر العالمية في عام 2013 وهي شركة waxaa la aasaasay 2013 waxa ayna tababartay in ka badan 10,000 oo qof. waxa ay bixisaa shahaadada caalamiga ah ee CIM. Safar waxa ay la talisaa 25 shirkadood oo wadani iyo caalami isugu jira. gunaanadkii madasha ayaa la kala saxiixday heshiisyo loo marlanaa, waxaana TV-ga qaranka uga warbixiyay madaxa xiriirka caalamiga ee shirkadda Akademiyada Qaamuus Learning mudane Mawlid Daahir Khayre. waxaa caaw farxad noo ah hadaynahay bahda reer Qaamuus. heshiiskan waan ka shaqaynaynay muddo ku dhow 2 bilood ayaa caaw si rasmi ah u soo bandhignay. waxaa goobjoog ka ahaa TV qaranka SNTV. waxaan ku bishaareynaa bulshada Soomaaliyeed in hawl badan oo nalaga filayay inaan u qabanay, taasoo ah inaan tayeyno waxbarashada dalka, gaar ahaan Akademiyada Qaamuus. Akademiyada Qaamuus waxay heshiis la gashaa shirkadaha iyo xarumaha tababaro ama maraakiis ee ay u aragto in ay u qalmaan in ay dadka Soomaaliyeed wax u gudbiyaan ama ay dalka wax ka taraan. taasoo aan ku xulanno daacadnimadooda, howlkarnimadooda iyo sida ay uga go'an tahay in wax la isdhaafsado, aan fiirinaynin dan gooni ah. sidaa darteed heshiiskan iyo heshiisyo la mid ahba oo aan soo wadnay kuwa hore u dhacaba waxay naga saacidayaan in aan waxbarasho tayo leh gaarsiino dalkii hooyo. Axmed Maxamed Axmed British, warbaahinta qaranka, Khartoum, Suudaan.